ninba waayihiisa ileyngeed kuwaabo waynu kala fogaanay miyaan kuwa kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin ku soo dhawaada Waryalan channel. haddii aad meeshan ku cusubtahay magacaygu waa Waryalan and welcome on board. waxaan fursad u helay inaan la kulmo the finest young upcoming Abwaan Daahir Cali Sheekeye oo iga sheekeeyay qiso yar oo jacayl ah oo soo martay ana og inaad ka heli doonto ee daawasho wacan. hargeysa markaa joogtay dabcan dadka inta badan qof walba iyada uu heesi karaa ama uu qabi karaa marka maantana waxaa la nasiib u yeeshay anoo jooga Tamaaw inaan la kulmo one of the youngest Abwaanis aadee and soo dhawo walaalo magacaada magacaygu waa Daahir Cali Sheekeye. Cali Sheekeye okay adigu ma hore ayaad u sameyn jirtay maxaa la dhahay gabayada iyo suugaanta mise wax hadda kugu cusub gabayada iyo suugaanta oo waxaan la yaraanteedii waa higo iyo aan halabuuraan isku arkay la yaraanteedii waan tirinayay anigoo intaan ka yari anigoo dhexdhexaadaba marka waxaan dhigi karaa waa heredity iyo waxaan xagga aabaha ka heritage okay waa dhanka aabaha ay okay wax yar ma noogu taaban kartaa mise ma noo sheegi kartaa wax I mean gabayada ama heesaha aad tirisay aad iyo aad waan ka sheegi karaa geyga Soomaalida oo aan dhalinyaro ah tahay waxa haddii aad aragtid gabadh qurux badan oo joog iyo jahoran leh waxa kugu dhici kara inaad jeclaatid gabadhaas waa gartay marka gabadh baan waqtiyada ka mid ah kulanay sax deegaanka buuhoodle marna horna waa ka hadlay aan salaata buuhoodle baad way marka gabadhii xiriir baan dhex maray iyo jacayl sax waxa hasaaway dhex maray hasaaw aad iyo aad sax aan ku soo hasaaw gudo aan meel ciyaaro oo dhalinyartu ku ciyaaro soo aan isku barano baa dhacday moogta marka waqti baa dhacday aan gabadhii isweydii sax anigoo joogo gobolka Sanaag magaalo la yiraahdo Xingalow okay ma sha Allah baa waxa niniima wuxuu yiri inuu gabadhii laadana waa weydii oo waqtiga iyo waayahaba aan ku bixisay sax gabadhii waxay joogtaa banaanka Sibaaye waa deegaan ku dhow Xingalow waxa ku waxaas wax suurtagal ma gabadhana marka hooyooyinka Soomaalida baa waxay qaybtood leeyihiin inay gabadha markay arkaan wiil la sheekaysanaya ay uga diidaan صح dhaqanka Soomaalida waa gabadhan in gabadh wiil laga reeba waa wax waligeed soo jirto arin ugu ma wax walba oo soo qaaday gabadha hooyadeed waxay isku dayaysaa inay protect gareyso oo dad wax sax u sheegto dabcan laakiin Allah yani sida khayr ku jiro sax marka gabadha hawareerteeda loo keenay aniga waxa lagu ogaa marka inaan buuhoodle dhanka jiro waxa la yiri bal gabadha iyo wiilka hal kala fogeeyo gabadhii waxa loo keenay habareerteeda oo degan deegaankaadi anigina waa iska soo noqday gabadhii markaan waayay ma bal leeshay gabadhii inay deegaankayga soo gashay gabadhii waa u tagay oo reerkayga iyo gabadhii reerkoodii waa daris sax casarkii baa arigii baan ka soo kala soocanay arigii oo dee moogtay baadiyaha arigu waa isku soo darsamaya waa gartay arigii baan kala soocanay gabadhii islaanta tii ninkaas ma sheekeeyo aha okay sheekeeyo marka islaantii gabadhii habeenkii waa guraysiisay sax haddana meeshii aad joogtay kasii wada way ka waday waa gartay afar waxaan ku 13 magaalo ay maalinba mid geynayso oo kaxaynayso oo si ay aniga ila cararayso aniguna aan marba magaalada tagay markay ka baxaan hadday baxeen habeenkii dambe baa waxa isugu nima haddana buuhoodle iyo gobolka Cayn isla haddana deegaan la yiraahdo Kalshaale dooxooyin ku dhow aroos ka dhacaya ma sha Allah gabadhii oo habeerteedo yimaadi هذا لما قفوا الجعل ده سيلو كله وعرفت سيلو كله درا الله تكوس عادي الله habeenkiiba waa in gabadhii iyo habartii oo gabadhii oo dalawado oo reerkooda la wado ila anigu hayn waayo wiilkii baa arkay gabadhaadii qabso aroos baa isugu nimo marka ciyaar iyo ka dhacso ciyaar dhaqameed oo laga ciyaaro goboladaas laga ciyaara waa gartay marka gaafkii baan soo galay marka waxaan isla hadii aad arrimaha iyo jacaylka saa uga hadasho dadka wada fahamsiisid dadku ku fahmayna gabadha doonayso sax waa gartay gabay baan kiriyaa moodsid dalxiis gabay meelaha ay magaalooyinka gabadha la soo mariyay laakiin muhiimadu ay ahayd gabadha doonayo waa gartay waxaan ka soo bilaabay gabayga meeshii aan maanta koor gabadha isku aranay oo deegaanka Sibaaye okay hadda wax yar ma nooga yartaa taaban kartaa aad iyo soo dhawaw waxaan idhi
haddii ay barwaaqa badado dunida maashayso oo daris la gabadhu jeclaada in kulan siiyo daraygiisi baayay iyo xadeeda dabta loo taago markii uu magaalada damcana baran ku sii daaya ama damala xagar iyo carmala dhahar dalxiiskeeda shirku waa danteen leexinkii duqaydu ay joogto ceerigaabo oo deelan oo daala lagu geeyo durdurkii brown oo biyaha dacal ka tuuraya dooxada hadaaftimo barqada seexday daristeeda ceel buudusheedaan dalxiis aad is leeyahay Allah ayo sanaag dahabsana dunida aan joogno waa meel kooda deeqsan sida nabadiidayne degdeg iguma jiro iyo inaan socod ka daalaya markaas gabadhii wax laga soo saaray gobolkii sanaag magaalooyinka la mariyay sol baa loo soo wareejiyay waxaan naf wax jecel dareemka aad waxaan laascaano iyo yaa ku dega xira daraawiishta xudun dooxadeedii barqada yaa fardaha daaja geelo intuu deyrta dhalay awrku doobinayo dib ayaan u soo celinayaa hawd u dalan doolsha dambarkeeda buu hodleeyaa daawad kaga maala degmadii kalshaale iyo tiil dooxyadii hawdka dermadayna ii fidinayaan da'yartii hagare aan soo dulmaro xiisuhu baa iga soo digoy marka meesha aan leeyahay aan soo dulmaro xiisuhu baa iga soo digoy waa meesha gabadhu joogto yaa rost gaafkii waxay wixii wax fahmay waxa yidhi hal heer soo jacayla kutur baa leeyahay ma heestaan gabayadana waa qortaa wala xawla wala quwwata hal hees ma kutur hal hees oo marka aan gabadhu la jiro ما هيس عصب مياه مسكة له هيسي هورا قرامي جه مياه هيسي هورا قرامي قال اسكت فهمي أوكي واقف هي حل حب نوقر فضل هيسي هورا قرامي في عند معناها قبل وقت ترى إلى طبعا تالي إلى قارة absolutely هاي بروح أنا إلى هذا هاي حالك هيس أنا كنت هوري بقبل إلى قارة صح وحنا بواي سا ليت كوارو وملا فغاني ميام سا الليل ملك وابو وين كلا فغاني waxaas ayaa jecel laga dhahaa hadii kale ka yamuudo and thanks for watching jacaylku beerkiyo kala jaray